saaxiib waxaan kula wadaagayaa 5 waxyaalood oo ka hortaagan guusha haddii shanta ka adkaatid waxaan shaki lahayn inaad guulaysan doontid biidnillaahi tacaala. midda koowaad ayaa waxay tahay waa fiir, waa cabsi, waa baqdin, waa qow. cabsidu ma aha waxaad taaban kartid, cabsidu ma aha wax ku muuqanayo, cabsidu waxay ku nooshahay maskaxdaada waa dareemaysaa. cabsida ogow waxay ku diidaysaa inaad ka dhabaysid ahdaaftaada, himiladaada, riyooyinkaada. mar kasta aad dhahdo tallaabada koowaad qaad waxaad arkaysaa cabsida inay ku timaado oo ay ku diido in tallaabada iyada aad qaadid. idin sheegaa sida ugu fiican ee looga adkaada cabsida waa waxa ka baqayso samee gudagal. wallahi alcadiim markii aad bilowdid oo aad gudagashid waxaad arkaysaa cabsidii inay baxday khalaas daqad ay ka buuxdo. tan labaad waxaa waaye alcajz, inaad tahay qof caajislow ah, layzi ah, tallaabo aan qaadayn. qofka hadduu macnaha layzi yahay macnaha ma kaco oo wax ma qabsado oo adduunka o dhan waa ku dhammaada. أنا أقول عجزك ليزنيمada waxay dishaa himiladaada iyo yiddiiladaada weligaa macnaha meel ma tegaysid. waxayna ka mid tahay waxyaalaha ilaahi subxaanahu wa tacaala laga cuudubilaysto. xasuuso ducadii caanka ahayd ee nabiga ka sugnata calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay allaahumma innii acuudu bika min alcajzi waalkasal. ilaahu waxaan kaa magangelayaa alcajz waalkasal. midda saddexaad waxaa waaye alqadab, waa xanaaq, inaa xanaaq badan tahay. ogow haddaa xanaaq badan tahay wax ma qabsanaysid, ma guulaysanaysid weliga malmad. wax walba waxaa ku dhaafinaya waa xanaaqaada. ogow dadka xanaaqa badan ma guulaystaan. waxayna ka mid tahay waxyaalaha nooga digtay diinta islaamka. sida ugu fiican oo xanaaqa lagu baabiyaa waxay tahay xaaladda aad ku sugan tahay bedel. haddii aad fadhida istaag, haddaad taagan tahay soco. aniga inta badan haddaa xanaaqo waa socdaa. tan kale xanaaqa waxaa lagu baabi'iyaa wasaqaadka. haddii aad xanaaqdo soo wasaqaado wallahi alcadiim waa qaboobaysaa. xanaaqii ku hayo dhan waa ka baaba'ay. midda afraad waxaa waaye jalasi, maseerka. waxaa ka maseeraysaa qof kale macnaha hantidiisa, ganacsigiisa, aqoontiisa, familkiisa, quruxdiisa, macnaha taasaa ka maseeraysaa. ogow waxa la dhahaa maseerka wuxuu gubaa, wuxuu cunaa waa farxadda iyo nabadda. qofka hadduu maseer badan yahay, xaasidnimo badan yahay, macnaha nabad ma ku sahlanay. maanta dhan waxaa mashquul ku tahay see ku dhacdo qofka waxaa inuu yeesho, inuu hantidaa yeesho, inuu aqoontaa yeesho, inuu macnaha guusha u gaaro see ku dhacdo. ogow dembiga koowaad ilaah lagu caasiyey fi samaa wuxuu ahaa waa maseer. ibliis ayaa wuxuu ka maseeray abuuna aadam calayhi salaam. marka taa micnaheeda waxay tahay macnaha qofka hadduu maseer badan yahay nabad ma ku sahlanay. so enerjiga aad ku bixin lahayd inaad qof kale ka maseertid oo naftaada aad cadaabtid waxaa ku bixisaa in naftaada aad dhistid, aqoontaada dhis, fadaada dhis, lacagtaada dhis, ganacsigaada dhis, familkaada macnaha quruxsii habbi ka dhig. midda shanaad waxaa waaye ego. ego waxa loo yaqaan alananiya. aan soomaali ahaan ku sheego waa aniga, anaa saxan, anaa quman, anaa fiican, dadka intooda kale oo qaldan yihiin. macnaha qofkan qof ka fiican adduunka ma joogaba. macnaha taas oo dhibaato ah. ogow macnaha ego alananiya waxay cuntaa oo ay baabi'isaa kobacaada. qofka hadduu dabeecadda noocaas oo kale uu leeyahay inta uu yahay macnaha ma dhaafayo. tusaale ayna siinaa carabta waxay dhahaan wabilmathal yatadixu al-amr. qofka haddii tusaale aad siisid wixii waa u caddaanaya. ka soo qaado qofka wuxuu ka shaqeeyaa shaqo maybe taxable wixii uu yaqaan laakiin waxyaalaha qaar ku adkaaday. hadduu qofka leeyahay ego badan alananiya macnaha taasaa waxay u diidaysaa in dadka asxaabtiisa ah ee la shaqeeya uu weydiiyo uu dhaho hey waxaanaan sameeyey xoogaa waa aqaanaa laakiin meeshaasaa igu adkaatay ee ma ii sheegi kartaan. macnaha taasoo kale qofka waxay u diidaysaa inuu meesha u dhaho inuu qabto. laanna maanta dhan waxaa dhibaysa wixii isaga ka maqan inuu qofka la weydiiyo. dabcan waa samayn kartaa, online aad tegi kartaa, google aad tegi kartaa, sage waa samayn kartaa. laakiin xaaladaha qaarkood waxaa ku qasban tahay in dadka asxaabtaada ah wax weydiisid oo aad ka qaadatid wixii aad baasii tibis.